halkan waa Muqdisho Soomaaliya oo aad kala socotaan BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya kaasoo hawada si toos aad uga dhageysanaysaan. maanta oo maalin Arbaco ah taariikhda miilaaduguna tahay 25 bisha May 2016 taariikhda hijriguna ay ku beegan tahay 18 bisha Shacbaan 1437 waxaad ku soo dhawaataan warkii saacadlaha. wadamada inta badan isticmaala lacagta Euro-ga ayaa sheegay in dawladda Gariiga ay siinayaan lacag gaaraysa 12.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. shir ay yeesheen wasiirada maaliyadda ee wadamada inta badan isticmaala lacagta Euro-ga ayaa waxa ay uga hadleen sidii loo taageeri lahaa dawladda Gariiga. waxa ayna sidoo kale isku wada raaceen in Gariiga la siiyo deymo 2 sano ah. wasiirada ayaa gaaraya 19 oo wasiir ah waxa ayna ku shirayaan dalka Belgiumka. caawinaadani loo fidiyay dalka Gariiga ayaa imaanaysa kadib markii ay Gariigu sameysay isbedel dhaqaale ayadoona sidoo kale ay horay u dalbatay in loo fidiyo caawinaadani. wararka ka imaanaya dalka Suuriya ayaa sheegaya in 250 askar Mareykan ah ay gaareen magaalada Xaaska ee ku taala dalka Suuriya. wararka ka soo baxaya ciidankani gaaray magaalada Xaaska ee dalka Suuriya ayaa sheegaya in ay ka mid yihiin ciidanka maareyniska badda ee Mareykanka. waxa ayna wararku sheegayaan in ciidankani ay wateen hub culus. weli halka aad nagala socotaan waa BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay maanta oo maalin Arbaco ah in ay joojin kumeel gaar ah ay joojinayso duqaymihii ay ka waday wadanka Suuriya. warkani ka soo baxay wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa imaanaya kadib markii ay ururo ku sugan Dimashq iyo hay'adaha gargaarka ay ka dalbadeen in ay muddo kooban joojiyaan duqaymaha joogtada ah ee ay diyaaradaha Ruushku ka wadaan wadanka Suuriya si ay u gaarsiiyaan shacabka halkaasi ku nool gargaar bini'aadanimo. musharaxa madaxtinimada ee dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Donald Trump ayaa booqasho ku tagay magaalada Albuquerque ee gobolka New Mexico ayadoona halkaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo musharaxani. dibadbaxyaasha ayaa ay wararku sheegayaan in ay rabshado ka bilaabeen xarunta lagu soo dhaweynayay Mr. Trump. waxa ayna tuurayeen dhagaxyo iyo dhalooyin. sidoo kale booliska ayaa dibadbaxyada u adeegsaday sunta indhaha dadka ka ilmeysiisa. dibadbaxyadani loogu soo horjeedo musharaxa madaxtinimo ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa imaanaya kadib markii uu aflagaado u geystay dadka ka soo jeeda gobolka uu booqashada ku tagay ee Mexico asigoona sidoo kale aflagaado u geystay muslimiinta. weli halka aad nagala socotaan waa BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. dawladda Ruushka ayaa beenisay burburkii diyaaradihii dagaal iyo gawaaridii waaweynaa oo ay wararku sheegayeen in uu dab qabsaday. waxa ayna warkani ku tilmaamtay in lagu dacaayadeynayo xukuumadda Moscow. wargeyska Daily Telegraph ee ka soo baxa wadanka Ingiriiska ayaa shalay daabacay warar sheegayay in xarunta ciidanka cirka ee ku taala bartamaha Syria la arkay ayada oo gubanaysa. waxa ayna sidoo kale wargeyska ku sheegeen in 4 diyaaro oo ka mid ah diyaaradaha gumaatiga u kaca ee laga leeyahay dalka Ruushka iyo gawaari waaweyn oo kuwa ciidanka ah ay sidoo kale halkaasi ku gubanayeen. warkani ayaa Ruushka beeniyay waxa uuna sheegay in aysan jirin diyaarado ama gawaari ay leedahay Ruushka oo gubtay ama la gubay. waxa ayna Ruushka warkani ku tilmaamtay war aan laga fiirsan oo lagu dacaayadeynayo xukuumadda Moscow. shirkadii lahayd diyaaradii burburkeedii la laayahay ee Egypt Air
ayaa sheegtay in ay doonayso in ay laba shirkadood oo Faransiis iyo Talyaani ah ay la kaashato raadinta sanduuqa madow ee diyaaradaasi. warkaani ka soo baxay shirkadani masaarida ah ayaa imaanaya kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee Masar uu sheegay in sanduuqa madow iyo qalabka diyaaradaasi ay ku jiraan biyaha badda meelaha ugu hooseeya, asigoona sheegay in aysan dowladda Masar gaari karin meelahaasi. waxa uuna soo dhaweeyay dowladaha doonaya in ay ka caawiyaan raadinta qalabkani. waxaana intaas inoogu dhamaaday warkii saacadlaha oo aad kala socoteen BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. cid u dhaafana waxa ay dib uga heli kartaa barta aynu ku leenahay internetka oo ah www.bss-somalia.com.